madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni iyo wafdi hogaaminayo ayaa galabta soo gaaray Muqdisho halkan waxa ku soo dhaweeyay xubnaha kala duwan ee mas'uuliyiinta wafdiga madaxweynaha waxa ka isugu jiraan xubnaha golaha wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda Puntland iyo saraakiil madaxtooyo aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa soo dhaweyntii balaarsanayd halkan loogu sameeyay madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo dabcan wuxuu ka soo kicitimay Garowe halkaasi oo madaxweynuhu uu kaga soo qayb galay aas qaran oo loo sameeyay Allahu naxariistay madaxweynaha ku xigeenkii hore ee dawladda Puntland General Cabdisamed Cali Shire dabcan saaka meedkiisa halkan Muqdisho laga qaaday maantana halkaasi aas qaran loogu soo sameeyay wufuudda kala duwan ayuu qayb ka yahay madaxweynuhu ee soo gaaraya Muqdisho waxaana uu halkan isaga iyo wafdigiisu ay kaga qayb gali doonaan shirka looga hadlayo arrimaha doorashada Soomaaliya dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waa ogtihiin mar walba door muhiim ah ay ka qaadataa dhismaha dawladnimada Soomaaliyeed hore waxaan ugu bixinay dadaal badan oo burburkii kadib muddo badan soo socday diyaarna hadda waxaanu nahay mar walba inaanu ku bixino dadaal taag tamar iyo talo iyo waqti sidii aynu u heli lahayn mustaqbalka Soomaaliya ka qurux badan midda maanta aynu haysano aad iyo aad ba waxaan ugu mahad celinayaa bahda warbaahinta Soomaaliyeed ee halkan la joogta saaxiibayaal waqtigeena wada qaadanay maanta iyo dabcan hawlaha shaqo oo dalka iyo dadkeena u haysana aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa waa mahadsantiin